qisadani waxay ku saabsan tahay kalsoonida Alle inaad Alle ku kalsoonaato wax walba ku qabsado cajiib nin iyo xaaskiisa ayaa hadda ka hor safar badda u baxay waxa ay fuuleen markab dad badan ay ka buuxeen oo isna safar ahaa markii cabaar ay socdeen ayaa waxa dhacday inay baddii kacdo markabkiina halis u galay kolba dhinacna u socdo dadkii weydil ayaa hal mar wada qeyliyey oo cabsaday darawalkii markabka waday ayaa dadkii u sheegay inay khatar ay ku jiraan oo uu la hadlay qoladii raadeerka iyo qoladii badbaadada waxa uu u sheegay inay khatar adag tahay mid ay ku jiraan haddaad jecesha qisooyinka iyo barnaamijyadan soo tabaynayno laagsar muuqaalka siina shargare inta wada joogno qisada dhegeysanayno aan ka faa'iidaysan waqtigeenna aan ku wada salayno nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam goor komitiga salig nabiga mahadsanid kadib ay dadkii oo idil walbahaar iyo walaac iyo qeyladhaan isku daray laakiin ninkii iyo aafadiisii wada safray ayaa aafadii waxay aragtay ninkeeda oo meel iska fadhiya oo aan qorsho iyo murugba aysan ka muuqanin waa ay aaday dhankiisa oo ay ku tiri maxaad la fadhidaa oo la aamusan tahay ma waxaad rabtaa miyaa inaan dhimanno iyo wax la mid ah oo qaylo ayaa ay ku tiri ninkii markii cabaar ay ku booqday ayaa uu midi u watay la soo baxay galkana ka siibay markaas ayuu la dul istaagay oo waxa uu arkay aafadiisa oo aysan baqaynin oo ku kalsoon markaa ayaa uu ku yidhi miyaadan iga baqaynin inaan kugu dhufto maya xaaji kaama baqayo oo maxaa yeelay gacantaada ayaan ku kalsoonahay oo waxaan ogahay inaad jeceshahay oo aadan ii quurin kadib ayaa waxa uu yidhi gacantayda anigoo bini aadam ah waad ku kalsoon tahay oo waad aamintay inaan waxba kuu dhimaynin ee allihii gacantan aad aamintay suubiyey ee adiga ku abuuray maxaadan u aaminin ii sheeg haddaba aniga gacanteyda sidaad u aamintay ayaa anigana allaah subxaana wa tacaala u aaminay oo aan ogahay wixii ii qoran inaan marayo ama i badbaadinayo khatar walbo ayaan ku suganahay walaalka muslimka ah oo daacada alleh ku dadaal iyo cabsidiisa oo xaalad kasta aad gasho allah u noqo isaga ayaa kaa warqaba dhibka keenay isagaana qaadi kara ku kalsoonow allah subxaana wa tacaala waxaa soo tabinay qisadan anigoo ah siraajudiin sheekh maxamed xasan halkaad naga daawanayso waa tv-ga caalamiga DSD TV madarasada Zaynuddin online waxa uu kugu bishaareynayaa waalidiinta ku nool qurbaha jecel ubadkooda inay diinta bartaan inuu u diyaariyey waxbarasho heer caalami ah isla markaana ay ku aflixi doonaan waxbarashada aad ka helaysa madarasadan Zaynuddin waxaa ka mid ah barashada qur'aanka kariimka ah higaada iyo farqurxinta tajwiidka iyo tafsiirka fiqiga iyo siirada suuban nabigeena calayhi salaatu wasalaam axaadiista suubanaha sala allahu calayhi wasallam iyo naxwaha iyo ducooyinka haddaad jecesha ubadkaaga inay bartaan diinta islaamka isla markaana ku camal falaan madarasada Zaynuddin ayaa kuu diyaarisay waxbarasho heer caalami ah wixii faahfaahinaa nambarka shaashada ku qoran kala xiriir mahadsanid